السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto daawaneysaan qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid ah dagaalkii ka dhacay Lubnaan oo warar kala duwan laga soo saaray hay-adda wararka u faafisa Israa'iil oo qirtay sheegtayna in askar iyo taliyahoodii taangi lagu dhaxshiilay kadib markii Xisbullah ay gantaal la heshay taangigaas. waxaa kale aan idin hayaa isaguna Netanyahu oo faahfaahin ka bixiyay howlgalkii ay fuliyeen ciidamadiisa Iran iyo Pakistan oo walaac ka muujinaya xaaladda Lubnaan iyo xabad joojintii lagu heshiiyay. wararkaas ayaynu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale aan idin hayaa marinbiyoodka Hormuz xaaladiisu waa sidee, maraakiibtu ma sidii lagu heshiiyay ayay u socdaan mise weli ilaa imise markab ayaa hadda Iran u gudubtay. qodobadaas ayaynu barnaamijka kusoo qaadanaynaa. haddaba warar kala duwan oo ku saabsan xaaladda Lubnaan, dagaalka dhex maray Xisbullah iyo Israa'iil iyo xaaladaha ku saabsan marinbiyoodka Hormuz way noo soo socdaan. iyaga ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa. xaaladda Lubnaan waa sidee ka sheekeynayna nimankii in la qaramsaday, la eriyaday, meydadkoodii iyo waxoodii ay dhibaato ay ku noqotay inay soo qaataan waxaasoo dhan. hadda marka xaalku waa sidee ilaa galabta suu ahaa. horta marka hore waxaan ku hormaraynaa khasaaraha reer Lubnaan soo gaaray. Israa'iil diyaaraday qaadatay waxbay duqaysay soo maaha, dhimashadu imisay maraysaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay 47 qof ayaa ku dhimatay weeraro dhinaca cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan caawa waray soo saartay ayay ku xaqiijisay 47 qof inay dhinteen, 97 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradii dhinaca cirka ee ay soo qaaday Israa'iil oo ay Lubnaan ku soo qaaday. waaye marka hawshaasu marka halkaasay maraysaa. khasaarahaasay geysteen nimankan xaalkoodu sidaa yahay. ninkii Netanyahu ahaa marka ka hadlay iyaguna waxa ay sameeyeen. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, Netanyahu wuxuu sheegay in ciidankiisu ay weerareen ilaa 150 goobood oo ay ku sugnaayeen Xisbullah dhanka Lubnaan. haddaba ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu yidhi ciidamadeenu waxay weerareen 150 goobood, waxaana ku dilnay ayuu leeyahay halkaas 10 qof oo markaa ka tirsan dagaalyahanka Xisbullah ayaynu halkaa ku dilnay ayuu leeyahay. waayahay marka weli waxaynu ku jirnaa wararkii arrimaha ku saabsan ah. 150 goobood aan weerarnay kan waaye. dagaalku ma sii soconaa marka, ma sii wadi karaa dagaalka. Trump iyo kooxdiisu waa xanaaqeen. Iran waxay tiri annagu dagaal maartay hawsha sidaa hadday tahay Switzerland iyo meelaha ay wada hadal ma galayno. Pakistan walaacay ka muujinaysaa. maxaa dhacay marka? haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray. safiirka Israa'iil u fadhiya magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa isaguna goor dhaweyd si rasmi ah u sheegay Israa'iil inay waafaqday inay joojisay amaliyaadkii ama howlgalladii weerarka ay ka waday Lubnaan. haddaba safiirka waxa uu sheegay in howlgalka Israa'iil uu joogsaday 11 iyo barkii barqanimo ayuu maartay weerarkaasi uu joogsaday. haddii Xisbullah ay iyaduna joogtayso xabad joojinta, marka annaguna wax weerar dambe Lubnaan kuma qaadi doono ayuu dhahay. waa safiirka Israa'iil u fadhiya Washington. macnaha Trump iyo kooxdiisa madaxa loo salaaxaya markii ay diyaarada inta qaateen wax walba garaaceen oo heshiiskii dhan wareer galay. waxay leeyihiin waa joojina dagaalka. waxaan ka xanaaqnay nimankaasaan yaa gardarnaa marka la isku haya. Xisbullah waxay yidhi annagu waxa aan dhibaataa u geysanay nimankaan male. iyagaana soo aaday inta taangiya soo qaateen, iyagaana soo weeraray, markaasaan iska dhicinay. dagaalka xaguu ka dhacay meel ay horey u joogeen Israa'iil miya mise meel ay soo galeen? waxaa la ogaaday meel ay Israa'iil soo gashay inay tahay meesha dagaalku ka dhacay. marka yaa qaldan?
cid ka hadlaysa male Maraykana oo dhahay Israa'iil waa qaldan tahay adiga saas sameey ma jirto hadii laakiin Xisbullah xadgudubkaas iyadoo ay sameyn lahayd waa la isla qaylin lahaa waaye Israa'iil marka maxaa ka xanaajiyay oo weerarka diyaaradaha u qaadatay oo ay wax walba u garaacday waa la qararamsaday maanta si fiican loo dubtay waxa la yaab lahayd warbaahintoodii caawa waxay qorayaan waxay leeyihiin ayagu daayso afar dhimatayna ma dhihin afarta hal taangi ku dhinteen dheer hal taangi oo la gubay ayay sidii steak oo kale halka ugu bislaadeen macnaha steak oo kale loo dubay taangiga gudihiisa ku shilmeen kuwa kale marka waa hal taangi gudihiisa afar ku dhimatay sarkaal iyo saddex askari oo la socod taangigoodii gantaal garabka laga garo oo halis badan inta lala helay ayuu dhalaalay isaga dhan nimankii markaa iyagu halkaa koostaata ku noqday iyo mistake maad ayaa laga soo saaray haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa caawa cadaysay gantaal Xisbullaahi ay rideen in markaa ay ku dhinteen saddex sarkaal iyo saddex askari oo ku dhex jiray dabaabad ama taangi ku dhex jiray hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay tiri xaqiijin aynu sameynay waxaynu ogaanay in Xisbullah ay gantaalka garabka laga gano la heshay taangi ay ku jireen sarkaal iyo saddex ciidana waxaana afartoodiiba halka ayay ku dhinteen oo ay ku shiilmeena la leeyahay halkaas lagu shiilay nimankii marka afar hal taangi kaliya ku dhimad waa tii marka Xisbullah ay baatalayd wararka waxay rabaan sheegtaan iska baxa warkooda ka bax ilaa hadda meydkoodii guranaayeen Allah marka sheekadaas marka iyadana wararkii soo kordhay ayay ka mid tahay waaye marka maxaa kale soo kordhay saacadihii la soo dhaafay Iran iyo Pakistan way wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo midka Pakistan kii Iran wuxuu yiri Pakistan dhexdhexaadiyaal ahaydeen heshiiska waxaanu ku heshiinaa anaga iyo Trump kullu jabahat macnaha dhan kasta furin kasta in dagaalka laga joojiyo xabadda la joojiyo Israa'iil waa arkaysaan maanta diyaarada inta qaadatay Lebanon weerar sababtay u weerartay ma noo sheegi kartiin heshiiska aan galnay si muxuu yahay walaa cawayd la qabnaa dheen Pakistan Mareykankana waa u gudbinay inay Israa'iil iyadoo jabisay xabad joojinta hadda anagu waa u gudbinay kaliya marabna dheh anagu xarnaa wax cad hal la heshiiyo waa naqaan hal la dagaalamana waa naqaanay dheh laakiin munaafaqad kale ma ka sheedanay Israa'iil marka la day alaabtaan oo kala bilowdo hadda anaguna de shaqadeena qabsanayna haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay walaac ayaa waxa uu ka taagan yahay Pakistan iyo Iran walaac ayay ka muujiyeen xabad joojinta ay ku xadgudubtay Israa'iil oo markaa Lebanon xabad joojintii ka jirtay ayay ku xadgudubtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan waxay si cad u sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Mohammed Ishaq Dar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ay wada hadleen ayna isku sheegeen waxa jira iyo Israa'iil inay toos ugu xadgudubtay xabad joojintii ka jirtay halkaas way marka xalku halkaas uu maraya marka wararkaas ugu waaweyn dhanka marka waxaanu u weecanaynaa Hormuz markii Iiraaniinta waxay leeyihiin markab aynaan annaga u tilmaamin meeshuu marayo yuusan isku gudbin waa wada gudbaysaan laakiin meeshu meel caadiya maaha waa tii la yidhi 2,000 ilaa 6,000 oo miinooyin meesha ku aasan marka meeshii laydin idmadaa maraysaa laakiin ninkii hadhow madax adeeg keena meeshuu raba iska maraa oo baashuu la kacdo asagay u taallaa markaasaa nin walba jarayna annaga tee marnaa xagga mar doontaa yartaa raac xagga mar saasaa lagu wadaa iyaduna 11 markab oo saas shidaal uga yahay malaayiin barmiil oo fuusto oo shidaal ayay marsiisatay wax kasta dhici kara horta kuwaas iib geyso waaye Chinese iyo dhulkaan iyo dadkii ay wax siin jirto dhan hal mar ay u dalbashay
haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyey arrinkaas wargeyska la yidhaahdo Bloomberg ee kasoo baxa Maraykanka wuxuu leeyahay 11 maraakiibta waaweyn ee shidaalka qaada ah ayaa waxay ka shiraacdeen dekada la yiraahdo Tashabhar ee dalka Iran wakaaladaas Bloomberg la yiraahdo dhanka wararka Maraykanka waxay leedahay waxay wadeen 20 milyan oo barmiil oo shidaal ah ayaa maraakiibtaas qaarkood ay markaa wadeen waxaana ay ka gudbeen marinbiyoodka Hormuz ayagoo u sii socda koonfur bari iyagoo ka baxay dhanka koonfur bari ee Iran oo markaa adduunka aaday marka halkaas ay marka shidaalkeedii Iran halkaas marka ay geysatay waaye marka Hormuz isaguna wararkaas ayaa ka soo kordhay saacadihii la soo dhaafay marka waxa leeyahay si tartiib ahna maraakiibtu way u socdaan waxay yiraahdaan si oo tartiib ay maraakiibtu u soconayaan sababtoo markab kasta inta soo sheelaraysto iskama mari karo meesha de waa meel lagu dagaalamay miinooyin badan daadsan wax badan meesha jira weli heshiis fiican lama gaarin heshiisku hal lagu ku taagan yahay marka meeshaas waxa qof walba iska baro suuragalba marka heshiiskiina waa la fulinayaa maraakiibtii 60 maalmood wax canshuur la weydiinayo male laakiin canshuur ma lidin weydiinaye xafiiskan soo waca xafiiskaas inay qabatimaan la rabaa 60 bari kadib canshuurta meesha ku dhiibi laayeen waay marka dhawaga Iiraaniyada maartay nin iska socon kara baleedeen markab kasto meesha maraya hay'ad waxaan u sameeynay la socodka maraakiibta maraysa Hormuz meeshaas la xiriireen hadda marka waa free lacag la'aan ku maraysa Soomaa way ku hagaysaa hadhow 60 maalmood kadib markaa soo laabatid waa keenaysaa lacagta dhiibaysaa marka hay'adda marka waa la baraa maraakiibta iyo nimanka wada iyo ayaa la baraa shirkadaha iskale maraakiibta inay hay'addaas la macaamilaan